love you hooyo macaan. Maanta dhibaato walba igu soo kordho adiga ayaa iga dhici lahayd maanta ma haysta qof iga dhicinayo. maxaad u xiratay xijaabka eedada ayay ku weysay nafteedii qaaliga ahayd waxaana qaarajiyay oo qudha ka jaray aabbaheed dhalay gabadhan oo lagu magacaabo Faa'iise Abuukar ayaa ku geeriyootay magaalada Buur-Hakabe. haddaba daawadayaal inta aanan kula wadaagin dhacdadan argagaxa leh fadlan marka hore muuqaalka leegaray si ay gabadhani cadaalad u hesho ayna dadka Soomaaliyeed uga dhiidhiyaan dhibkiisa u gaaray sidoo kale nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabteena adigoo channelka subscribe dhahanaya. waa dhacdo argagax leh. Faa'iise Abuukar waxa ay ahayd gabar 14 sano jir ah waxaana dhalay hooyo lagu magacaabo Maaliye Maxamed Cumar iyo sidoo kale aabaheed oo lagu magacaabay Abuukar Ibraahim. haddaba waalidkan ayaa waxa ay kala tageen goor hore waxaana gabadhan yarta ay Faa'iise lagu soo wareejiyay islaan kale oo guursaday aabaheed. haddaba Faa'iise ayaa la nooleed eedadeed weliba hooyadeed oo nool kadib markii aabuhu uu door biday inay halkan ku noolaato. hase yeeshee dhacdadan argagaxa leh ayaa waxa ay u dhacday qaab qof kasta oo bini aadama oo maqlay uu la yaabay maadaama waxa gabadhan yar tahay ay sabsatay uu ahaa wax cajiib ah. haddaba Faa'iise oo markii horeba sida la sheegay kala kulmi jirtay xaafadda ay ku nooleed cadaadis ayaa maalin maalmaha kamid waxa ay gashatay xijaab ay lahayd eedadii ay la nooleed. haddaba eedadii ay gabadhan la nooleed ayaa arrintaasi aad uga xumaatay waxayna durbadiiba ku dacweyday aabaheed oo lagu magacaabo Abuukar Ibraahim. aabaha dhalay gabadhan oo sida la sheegay u dhaga nugulaa xaaskiisa ayaa durbadiiba waxa uu wacay Faa'iise isaga oo markaasi ku bilaabay inuu canaanto. hase yeeshee canaan kaliya uguma uusan koobin waxa uu ku sameeyay ciqaab bini aadam midkii ugu darnaa waxauna gabadhan yartahay ku soo xiray qol waxa uu afka kaga xiray maro sidoo kalena waxa uu ka xiray gacmaha waxauna amray in aan wax cunno iyo biyo ah aan la siin karin. gabadhan ayaa sida la sheegay muddo 3 maalin ah ku jirtay qolkaas iyadoo aan helin waxay cunto waxay caabto sidoo kalena neeftu ay ku xirneed maadaama afka maro looga xiray qol mugdi ahna ay ku jirtay. haddaba gabadhan ayaa waxa ay rafaaday ugu dambeyn waxa xogteedii soo helay hooyada dhashay iyadoona markaasi kadib gabadhii loola cararay isbitaal iyadoo ay naftu ku daba yar tahay. hase yeeshee ugu dambeyn gabadhii ayaa xaaladeedii caafimaad ka dartay waxayna ugu dambeyn ku geeriyootay isbitaalkii loo geeyay in lagu dabiibo. haddaba dhacdadan argagaxa leh ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Buur-Hakabe. booliska magaalada Buur-Hakabe ayaa durbadiiba ka soo jawaabay dhacdadan iyagoona xabsiga u taxaabay aabihii dilaaga ahaa ee ka dambeeyay gabadhan yar ee Soomaaliyeed in ay geeriyooto. waxaana leenahay Allah ku naxariisto runtii waxaad ku baxday gacanka xaq daran oo aad marnaba mudnayn in ay ku baxnaaniso mooyaane in ay dil ku geysato. aabaha iyo hooyadu waa qofka la rabo inay carruurtooda xanaaneeyaan mana ahan in ay dhib kala kulmaan. way iska jirtay weligeedba Soomaaliya in aabayaal ay inta u geeyaan ilmahooda eedooyin iyo dad kaleete kadibna halkaasi lagu tacadiyo. hase yeeshee dhacdadan ayaa waxa ay noqonaysaa markii ugu horeysay oo la maqlo in aabba uu gabadhiisii gacanta ku dilay isagoo markaasi la jirsanaya eedadeed ama qofkii kale ee hayay. haddaba waxaan leeyahay carruurta ishoodu waa ilmadow waa in dariska iyo sidoo kale dadka kale ee la ah qaraabadu ay ka warhayaan carruurta ay hooyadeed iyo aabahood kala tageen ama ay hooyadood geeriyootayba. haddaba daawadayaal halkan ayaan ku soo koobayaa dhacdada argagaxa leh oo aan ka diyaarinay walaasheen si ay cadaalad u hesho fadlan muuqaalka leegareeya uuna u faafo una gaaro bulshaweynta Soomaaliyeed. halkani waa Garsoor Media mahadsanidin.